السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة وناكسن ميلو بعد joogtiin waa walaashii Nasro oo maanta idin wado mowduucii labaad ee caruurta kaasoo maanta aan kusoo qaatay laba qodob aan rabin inaan la share gareeyo oo kala ah motivation iyo good communication. labadaas qodob oo aan u arkay inay aad muhiim u tahay especially anaga markaan waalid Soomaaliyeed nahay aan ku baraarugsanayn guryaheena ilmaha inta ay yar yihiin macnaha aan ku soo barbaarin oo hadhow markay maaragtay weynaadaan aan isku dayno maaragtay inaan aan janji gareyno. laakiin waxaan ku sheegayaa labadaas qodob inta ilmaha yar yihiin maskaxdooda ku trainaysi guriga ka bar ku tababar. tusaale ahaan haddaan ku hormaro dhiirigelinta oo kale markaa ku hormaro motivationka waxa kamid ah cunuga inaad barto inta uu yar yahay. haddii maanta adoo mashquulsan ama howl ku mashquulsan wax qabanayo ama telefoon ku hadlayo cunugaaga ku imaado wax ku weydiiyo waa inaad u jawaabtaa oo dhahdaa okay qofka kula hadlayo waa inaad break gelisaa oo cunugaa dhahdaa okay hooy maxaa rabtaa waxaas haddii wax markaas wax u qaban karto ama uga jawaabi karto ay yihiin isla markaas uga jawaab. haddii markaas wax oo u baahan in waqti la geliyo ay yihiin telefoon iska soo gabagabay cunuga waxaa la sameeyay because asigaa muhiim ah. halkaas marka maxaa baraysaa cunuga dhiirigelin way jawaab bilaabataba cunuga markaas waxaa bartay markuu wax ku weydiiyo inaa u jawaabtay. iskuulka markuu tago maxaa dhacayo macalinka markuu wax weydiiyo cunuga waa cunug isu kalsoon oo waxa guriga laga soo baray inuu xaq u leeyahay inuu qof wax weydiin karo oo xaqna u leeyahay in loo jawaabo. cunugi marka ma cabsanayo markuu iskuulka tago wuxuu macalinka weydiinaa ardada kale wuxuu weydiinaya banaanka marka lagu ciyaarayo kaleeto society-ga ku dhex jiro waa cunug fikirkiisa oo cad yahay ma fahantay. laakiin hadaa guriga ku barto kaleeto wariyayga aamus hadaa tiraado halkaas waxa cunugiina macnaha maskax ahaan aad dhiirigelintiisa hoos u dhacaysaa communication wanaagsan ma baraysid oo macnaha waa laba dhiirigelinta iyo communication waa laba shay oo macnaha isku xiran oo aanan macnaha aan la kala saari karin. marka waxaan rajeynayaa horta taas inaa bilowdo. ta kale waa aragteen ilmaha waxaa jira midna kale waxbarashada kaleeto way adagtaa adduunka meesha harta ka joogo xataa Soomaaliya meel walba adduunka maanta aqoon fudud ma jirto. cunuga markuu imtixaan yar oo kale oo keeno imtixaanka bundeer oo keeno marka waalid tahay positionka waalidka laga rabo inuu soo istaago waxa waa inaad tiraado bundada aan maanta keentay bunda ka fiican waa keeni kartaa. kuma dhahay waalid jilcan oo macnaha cunuga macnaha dabaalka dhiga noqo laakiin dhiirigelin oo waxa siisaa oo maskixiyan ah laakiin compare qof kala cunug kala compare ha hala barbar dhigin sida anaga inteena badan waalidiin badan oo Soomaaliyeed ay sameeyaan walaa cunuga saas oo noqday heblaay gabadheeda jaamacada ka baxday heblaay wiilkeeda waxa uu sameeyay forget about. maanta barnaamijkan ku soo gaar waxaan ka codsanayaa wax walbo oo yaani qodobada aan kula share gareena ka hor imaanayo mindset ka dheh wax ku soo kordhinayaan ma jirto. adee hadafkaaga ma waxa waaye inaad soo saarto cunug waa la tilo oo maskaxda yaani mental oo strong maskax haysto hadalkiisu cad yahay wuxuu baranayaa si maaragtay oo niyad wanaagsan ku barto mase waxa waaye cunug inaad soo saarto dhaha okay wallahi billahi hooyada ama aabaha wuxuu jecel yahay waxaas saaxiib dadkaas kale wax yaani asoo cunug ku fikiraya dadkaas cunug waxa inuu asiga iska fikiro dheh waxa baranaysid adiga muhiim ku tahay inaad wax barato naftaada anfacaysa anay anfacaysa bariadu ilaahay awlaad ku siiyay ilaa maanta heerka taagnaanaysa qof weyn oo macnaha waxa noqonaysa oo lagu tashto ilmaha ay anfacaysa society-gana waa anfacaysa. markaas qofkii markaas wuxuu baranaya xataa wuxuu u baranaya kalsooni oo naftiisa mar uu rabo inuu ku soo saaro. marka waalidnahay waxaa muhiim ah labadaas qodob ma kala haraan. waxaa ku soo haray xeetaan inaad maaragtay communication waa waxyaabaha kaliya ee qalbiga ilmahaaga ku hanan karto waa inuu xiriir wanaagsan oo adag idinka dhaxeeya ilmahaaga inaad tiraado waan ku jecelahay inaad tiraado macnaha wuxuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala isii wixii ugu wanaagsan ayaa tahay hadiyooyinka Ilaahay isii maanta adiga waxaa tahay macnaha laf dhabar ay tahay adiga muhiim ay tahay adiga hadalkaaga maanta macnaha marka ii qosasho qalbiga ii qaboobo
markaan ku arka adiga oo macnaha murug iyo si xun dareemaya anigana si xunaan dareemaa. cunugaaga waa inaad communicationkiina waa inaad gaarsiiya. cunugaaga waa inaad tiraahdaa adigu aniga ay tahay macnaheedu maxaa waaye adiga haddii wax kaa qaldan yihiin ana waxbaa iga qaldan. cunuga markaa saas aad communicationka aad ku bilowdo cunuga mar walba wuxuu ka fikiraya okay hadda adiga maanta ood aad si xun aad dareento hooyada ama aabbahaana si xun ay kula dareemayaan asiga markaas uu is adkeynaya because dhiirigelisay hadal wanaagsanaa ku dhahday. inta badan waxaa waaye waxaan ka cabanaa ilmaha inay nala lahayn xiriir wanaagsan ama ilmihi iyagoo cunuga oon cunug wanaagsan oo caasi aanan ahayn ayaa waxaa laga yaabaa inuuba kula xiriirin oo xiriirka kula xiriira uu yaryahay. taasna marka waxa u sababa markiisa hore cunuga yaraay haddii aan lasoo barin macnaha muhiimadda ay leedahay maaragtay xiriirka waalidka cunugka dhexeeyo. inta badan annaga waxa waaye toobigaas ma saarno macnaha xooga ma saarno laakiin waa toobig aad iyo aad u muhiim ah oo aniga aasa nasra ahaan kulley haddaan waalidaan ahay aan dareemaya inuu muhiim yahay. marka insha allah waxaan rajeynayaa inaa maaragtay hadal wanaaga iyo cunugaaga oo guriga aad uga dhiirigeliso waxay sabab u noqonaysaa cunugaaga inuu noqdo cunug successful ah, cunug markuu bulshada ku dhex jiro hadaladiisa ay cad yihiin. ilmahana isku mid ma ahan. ilmaha way kala duwan yihiin. cunuga wuxuu u baahan yahay wax yar in la dhiirigeliyo, cunugna wuxuu u baahan yahay waqti badan in la geliyo. marka waa inaad kala saartaa oo ilmahaaga haddaa 2 haysato 3 haysato intaa cunug haysato yacni maskaxdooda fiiri. maskaxda cunuga waalidka waxaa lahay wax kasto cunuga waalidka ka dhigi karo. waalidka ayaa wuxuu ka dhigi karaa cunuga wuxuu gaarsiin karaa cunug macnaha bulshada meeqaam sare ku leh. waalidka cunug ka dhigi karo cunug maskaxdiisa ay baaba tahay. marka ilmaha guriga ayaan lagu bahdilin yani ereyada macnaha oo xunxun oo dabaala tahay wax matara tahay waa idibtay waxaas ka dhaaf. marka cunugan adduunka ilaahay weyn ka suko adduunka aad dhashay cunugan adduunka aad adiga keentay adiga ayaa go'aan ku gaaray inaad maaragtay adduunka wax ku soo kordhiso. qofka bini aadan intuu dhalo ee koriyo ee waxbaro ee soo saarane waa qof ilaahay subxaanahu wa tacaala oo maaragtay awoodaha dadka diyaaradaha aragtay dad yacni dadaha macnaha soo saareen. qofka ninka diyaaradda sameeyey waxaa hooyaa dhashay aabba dhaleen. dhakhtarka aragtay ee maalmo baa u tagno ee markay meel yarna xanuunsan aan ku cararno hooyaa dhashaa soo korisay inta soo ekaysiisay. waxay kula tahay iskuulka kaliya inuu caawiyo maya iskuulka kaliya ma caawinin guriga wuxuu ka haystay waalid waxaa soo koriyey macnaha adag oo waqti iyo juhdi iyo xilbi soo bixiyey. marka insha allah aan ogolaano markaan ilmo dhalnay oo adduunka aan keenay inaad waqtigaaga aad geliso ilmaha inta badan. ogow ilmaha way korayaan cunuga markuu 12 sano gaaro markaasaan dhiirigeli ku bilaaba ama markaasaan maaragtay communication wanaag naga dhexeena ma soconayso. intuu yaryaha ku soo bilaaw sida u noqotiin uleediirkeed. communicationka jacaylka soo galaayo markuu iskuulka ku maqan yahay kaleeto oo ama sii baxaayo kale inaad cunuga haag siiso inaad tiraahdo maalin fiican iskuulka ku rajeynaya asigana uu ka barnaa wuxuu ku leeyahay hooyo maanta maalin fiican shaqada ku rajeynaya oo shaqadaas ay ku ahayd يعني لا شير قري وحيابها مهم كأه هو ما أنت شقده ولا إيه وناكسنت ما أنت شقده إيجو أتكت أصلا سوكول شير قري ولا ما أنت امتحان هذا قال إيه كاني ما أنت حتى سكول كدعي ضد وحياتي مركز معركة أو أهت معناها إن أريو معركة أو إسلاف صناعي أو كل جعيله هادنا وحكي فايديس بري مركو عنو جاس مركو وينادو أو وحبرشيز ميل كلا حتى أو آدو عمل الجوار إيه تأمويل أو يهو جورسو ميل دجو cunugu wuxuu noqonaa bas macnaha muuqaal ahaan loo ka maqan yahay laakiin maskaxan uu kula jooga because xiriir wanaagi waxaasna adaa soo sameysatay. marka sameyso cunugaaga xiriir wanaagsan oo haddii uu xataa mustaqbal ama maanta shaqo meel kale u aado oo idinka dhexeeyo oo aad macnaha dhiirigelin ka sii karto. markuu xataa ilmaha ay weynaadaan ay waxbarashada dhameeyaan ma u baahan yihiin dhiirigelin gabadha ama wiilka markii la guursado tale inaad siiso inaad dhiirigeliso waxa marriage-kiisa is leedahay wixii ku keenaa problem inaad kala taliso u baahan yahay.
waxyaabo fara badan oo maanta gabdhaha markay yaryihiin ama wiilasha dhalinyarada ama guurka burburo dhan waxay hoos imaanayaan ma haystaan macnaha meel ay u cararaan ama waalid tala siiyo waayo waalidkii maba waxyaabo fara badan oo waalidka waxaa jira aan kusoo ciyaarnay oo anaga aanan ogeynaa jirto marka insha allah maanta wixii ka dambeeyay in lagu macnaha lagu baraarugsaado rajeynayaa insha allah labadaas qodob insha allah guriga xooga ka saar si uu ilmahaaga waxbarashada bulshada haddii uu guursado noloshiisa dambe ugu guuleysto ogow cunugaaga mar walba waa kuu baahan yahay dhiirigelintaada iyo communicationkaaga wanaagsan ee aad hoos kasoo bilowdo cunugaaga u baahan yahay waa kheyra idin rajeeye mar labaad waxaan idin leeyahay insha allah haddii waxaan ku dhaha kanaalka subscribe-ta haddaa ila joogto waa ila joogtaa haddaa igu cusubta subscribe saar comment qurux badan like waa idinkaas waa xaggiina siina share garaysi asxaabtada kale uga faa'iidaysato maalin wanaagsan